qodobka labaad dib u eegista xeerka noqoshada miisaaniyadda 2017 miisaaniyadda ansixinteedii laba gaarin soo bandhigisteedii weey fadlan inaad maasixsaan waa mahadsantihiin sida uu qabo cutubka sagaalaad qodobka 68aad habraaca loo ansixinayo miisaaniyadda federaalka waxa ay cadaynaysaa in warbixinta ku saabsan miisaaniyadda iyo qabyaqoraalka miisaaniyadda inuu wasiirka maaliyaddu soo hordhigayo fadhiga golaha isla markaasna aan looga doodi doonin waa soo bandhigidii miisaaniyadda weeye wasiirkaana iska leh waxa weeye ku-xigeenkiisii iyo waaxdii miisaaniyadduna waa ay fadhiyaan waajibkaas dastuuriga ah ayaanu gudanaynaa oo ah soo bandhigidii 15 waxa weeye waxay ahayd adigu bishii hadda 20 bari meelahaasa xogaha lala soo yara daahay golaha wasiirada iyo xogaha yar dib ugu noqday taasay ka soo shaqaynayeen marka waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka maaliyadda in uu waajibkii dastuuriga ahaa soo bandhigidda guto waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa maanta sharaf ii ah inaan idin soo hordhigo miisaaniyaddii toddobaad ee dalka miisaaniyadda sanadka 2018 ugu horeyn waxaan jecelahay inaan fursadan anigoo ka faa'iideysanaya u mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha sida hufan ee wacan ee ay noola soo daadihiyeen budgetka ama miisaaniyadda waxa kale oo aan u mahadnaqayaa oo iyaguna xusid mudanayaasha iyo marwooyinka wasiirada ee golaha wasiirada oo iyaguna nala qaada dhigay oo nala hufay miisaaniyadda hortaalana soo ansixiyay waxa kale oo iyaguna xusid mudan hay'adaha dawladda faraha badan iyo ciddii budget ka qaadata dawladda oo iyagana waqti dheer aan wada qaadanay oo ka soo wada shaqaynay oo aan wax meel isla dhignay waxaan ka cudur daaranayaa inaanan baahiyahoodii oo kale dhan aanan wada dabooli karin baahida waxa lagu daboolayaa waa dakhliga ayaa wax maamula waxay iga aqbaleen marba wixii aan isnidhi dhiisha gunteeda ama xeerada gunteeda ayuu ku jiraa ayaan isla aqbalay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa gudana gudoomiye inta hataan uga gudbo waxaan doonayaa wax yar inaan ka sheego miisaaniyaddii 2017 oo gabagabo ku dhow maanta waa 20 November inay soo gabagaboodo waxa ka haray bil iyo 10 cisho qoondihii loogu tala galay miisaaniyaddaas waxay ahayd 260 milyan ayay ahayd adduunka markaad garab dhigto dawladaha aan isku xajmiga nahay ama isku dhaqaalahaba nahay aad iyo aad bay hooseysaa laakiin markaad eegto halkan ka nimi waxa weeyaan wax la is oran karo talaabooyin baa la soo qaaday meeshaan ka nimid marka la eego 260 kaasi waxay leeyihiin 3 qaybood qayb gudaha dalka ka timaada waana qaybta ay tahay mar walba inaan isha ku hayno qaybta gudaha ka timaada waxa ku jirta qayb kale oo kab
oo miisaaniyadda lagu kabo oo dibadda ka timaada oo bilateral waxa la yiraahdo inagu siiyo qaybta saddexaad waxa weeye qaybta mashaariicda multilateralka ah ee mashaariicda dalka la keeno lagu sameeyo waxay kala ahaayeen qaybta dakhliga aan ugu talagalay inay ka soo baxdo 137 milyan ayay ahayd oo ka mid ah 260 ilaa iyo 830 milyan ayaan ugu talagalay inay noqoto kab bilateral oo wadannada qaarkood ina siiyaan inta ka soo hadhay oo 85 milyan waxa laga filayay inay mashaariicda noqoto maxaa markaa ka hirgalay arrimahaas waxaan u maleynayaa taasi inay tahay mid aad iyo aad u qurux badan inay isku ogaano balada talaabooyinka qaadnay iyo talaabooyinka la inooga baahan yahay inaan hore u sii qaadno halkii la inaga doonayay 137 inkastoo sanadkii wali dhamaan haddana malaha iyagu wuxuu yahay sanadku markuu dhamaado inay noqon doonto 132 halka markaa waxa isdhimaya 5 milyan talaabooyin waaweyn ma soo qaaday saad arkaysiin wax yar baa inaga dhiman waxaasina waxay ahayn cashuurihii aan ugu talagalay in laga qaado cashuurta gadista iyo cashuurta telecommunication ka saad ogtiin taasina wali wada hadaladii baa noo soo qaaday markaa taa wax ka soo baxaan haday taa wax ka soo baxaan waan markaa inoo suura galaysaa inaan 137 isla gaadhno arinta kale dibadda aan ka sugaynay ee bilateralka ah budget support ka loo yaqaano ama dhamaystirka budgetka miisaaniyadda 830 ma sugaynay 40 baa yimi runtii in ka badan baa timi laakiin usluubta budgetku waxay ku tilmaamaysaa intaasoo milyan oo dheeri hadaad hesho dee wixii budgetka ku jiray umaad ka isticmaali haddii baahi weyn timaado dib baa baarlamaanka loogu soo noqon marka lacagaha yimi ay idinku maqasheen oo aan idinka qarsoonayn wixii marka aan ka isticmaali karnay ee budgetka ku jiray ayaa soo gelinay marka waxa xusid mudan dakhliga gudaha inaga soo gelaya oo ay tahay inaan kaga kaaftoono wax dibadda ka yimaada oo budgetka lagu kabo wuxuu kordhay 18% waxaan u maleynayaa waa koboc wanaagsan weeyaan sanadka soo socday inta ka sii fiicnaato ayaan ku tala jiraa waxaan doonayaa dhowr arrimood oo ka soo baxaya budgetka hal muceediyada aan u bixiyay inaan idin la wadaago ka koobaad waxa weeye sanadkan 2017 8% ayaa korodh yimi dakhliga gudaha ka soo baxa arinta labaad dakhliga gudaha ka soo baxaya iyo kabida waxa marka la isku daro waxay ka fargareynayaan ama ay daboolayaan 7% dakhligeena gudaha ka soo baxa macnuhu waxa weeye markaan eegno kharashka joogtada ah ee loo baahan yahay in lagu rangareeyo wadankan 23 ayaa wali inaga dhimanay 23 kaasi haddaan inta kor u kacna sanadkan waxay noqon doontaa inay suura gasho kharashka joogtada ah ee inagu baxa markaan kharashka lagu talaga horumarka halkan iska dhigno ka joogtada ah ama mushaharaadka ama hawlgallada lagu hawlgalayo inaan dabooli karno ayaa laga yaabaa waana ku soconnaa haddana ku soconno aan ku sii soconno waxa kale oo ka soo baxay sanadkan inaanay jiri doonin wax deyn ah oo ku biirta deymihii hore ee la inagu lahaa gudaha la inaga lahaa watan maalinta hore idiin sheegay ilaa 60 milyan ayaa meel ku yaala oo waxaan u bixiyay kolay ku jira oo baarlamaankii hore ee shaqeeyay lacagtoodii ku jirto dawladda ku lahaayeen dad kale oo shaqeeyay oo aan mushaharooyinka qaadan ku leeyihiin dad fara badan ay wax ku leeyihiin oo ilaa 60 milyan ayaa meel ku xidhan annaga iyo IMF ka iyo SAP guna aan heshiis ku galay inaan waxba lagu darin waxa sharaf yahay inaan sheego inaan waxba ku darsameyn macnaheedu yahay
alla wixii kharash baxaya ee sanadkan la galay in sanadkan la bixin doono haddii ay beedmo marka ay timaado aakhirka December mudane gudoomiye waxaan doonayaa inaan idin sheego dhowr arrimood ayuu ku salaysan yahay miisaaniyadda ama ay ku salaysan tahay miisaaniyadda 2018 arrimaha dawladda nabad iyo nolol ka go'an in lagu talaabsado waxna laga qabto oo aan isleenahay waxa weeyaan istiraatiijiyada budgetkeenu ku base garaysan ama ku salaysan yahay waxa kamida amniga sidii loo sugi lahaa kamida dakhliga in la kordhiyo waa laga maarmaan marka wixii dakhli bixin ku baxaya in meel la isla dhigo wixii amniga lagu sugayo inuu ahmiyad gooniya inoo leeyahay geedi socodka doorashooyinka hal cod hal qof ee 2020ka in isagana kharash dheeraad la geliyo xoojinta habka maamulka maaliyadeed iyo maareynta guud maamulka guud ee dawladnimo waa arrimaha aad iyo aad budgetkan isku dul taagay iyo dib u dhiska iyo horumarinta dalka iyo dadkiisa arrimaha halkaan ku soo xusay ayaa saldhig u ah budgetka ama miisaaniyadda sanadka 2018 waa ka warhaysaan waxa la qiyaasaa sanad walba halka ay dalalku ka taagan yihiin income-kooda ama dakhligooda halku taagan yahay banka adduunka sanadkii 2016 waxa qiyaas ka keenay halka dawladuhu kala taagan dalalku kala taagan yihiin waxaanu soo cadeeyay waxa weeye boqolkiiba 70 meelahaas in dadka Soomaaliyeed ay ka hooseeyaan dakhligooda ka hooseeyo meesha ugu hooseysa ee heerka shaqana tahay boqolkiiba 44 meelaha marka poverty line-ka waxa la yiraahdo in boqolkiiba 70 Soomaalidu ka hooseeyaan waxaan ooyaa wadanada aad iyo aad ugu liita marka la isku wada keeno ayaa magaranaya ayaa la sheegay taa waxaan doonaynaa marka inay hal hays noqoto ama saldhig noqoto budgetkeena oo ayna wax walba ku kharash garay kaliya kharashka joogtada ayaa budgetkani ku suntan yahay waxa kale oo jira nidaamka SMP ama staff monitoring program oo aan kala saxanay annaga dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adda caalamka lacagta la yiraahdo IMF International Monetary Fund aan kala saxanay oo oranaya hab socod toosan inaan sameeyno oo intaas oo qodob leh kaasina waxaynu tusay waxa weeye inaynu waxaan haysano isticmaalno inaynan tegin waxayna inagu soo saar lacag inaan haysan inaan isticmaalin ayaa kamida dawlad wanaag ba kamida inaan deyn dambe la gelin ba kamida cid waliba cashuur bixisaa kamida waxyaalo badan oo caynkaas ah ayaa kamida dakhligeena inuu kordhana waa must way taasina iyadana waxay noqonaysaa qodobada ku salaysan yahay mudane gudoomiye budgetkan imkaan idin soo hordhigaya marka halbeegiisu ama higsigiisu ama odoroskiisu waa 247.6 marka hadaad kii hore idin soo sheegay karab dhigto 14.6 milyan uu ka sareeyaa laakiin waxa very important waxa aad iyo aad mudan in la isku taago qaybaha budget ku leeyahay ba ayaa important in ay isku taagno compare garayno aan iska rab dhigno dan inaan eegno overall meelo ka imanayana waxa weeyaan meelo aynaan ku kalsoonaan karin laakiin kalsoonay waxa ka gudaha inaga soo galay sida daraadeed ka gudaha inaga soo galay waxaan ku qiyaasanaa waxa weeye halkii qiyaastii hore ahayd 137 kan qiyaastiisu waxa weeye 156 marka ila 20 milyan 24 meelahaas ayaan doonaynaa inuu ka sareeyo dakhliga gudaha inaga soo galaya waxaan ku sii siqaynaa waxa weeye inaan dakhliga inaga soo galaya u kabo
kuna filaado kharashka joogtada ayaa ku sii siqaynaa kuna sii dhawaanayna waxaan u maleynayaa haddaan saa u socono sanadka dambe inaan iska wada bixin doono wixii kharash joogta oo dabeetana wixii development ama maalgelin lagu sameeynaya inaan dibadda ka heli doono waxa aan idin sheegayaa oo kale budgetkani wuxuu isaguna sheegayaa xildhibaanada sharafta leh waxa weeye waajib dastuuri ah baanu gudanaynaa miisaaniyadda dalkaanu waxa weeye dhageysanaynaa fadlan hadalka hal la joojiyo qolada farsamada waxaan ka codsanaynaa codka intay dheereyn karaan in la dheereeyo wasiirkuna inuu afka u dhaweeyo waxa budgetkani uu kaga duwan yahay kii hore waxyaalaha horumarinta ayaa lacaga dheeraada loo qoondeeyay waxaad ogtihiin sanadkii 2014 iyo 2015 qoondayntu waxay ahayd boqolkiiba 1 ay ahayd waxyaalaha loo qoondeeyay arrimaha horumarinta ama waxaha horumarinta sanadkan maanta 2017 markii inagu aan ku celinta sameynay waxaan u qoondaynay boqolkiiba waxay noqotay 10 bay noqotay sanadkan imika aan soo wadno waxay noqonaysaa boqolkiiba 15 marka waxaan ku sii siqaynaa inaan inagu lacagtan soo saaraa inagu filaata maaha kaliya inaan wixii consumption ku shaqo lahaa ama ku shaqo lahaa kharashka joogtada ka gudubno oo kharaj wadanka wax gelinaya investment gelinaya inaan u gudubno ayaa budgetkan ku jirta haddaan sii faahfaahiyo maafkaan la galaa markaa ya waan u dhawahay haddaan sii faahfaahiyo wasaaradda caafimaadka waxaa loo qoondeeyey 3 milyan oo aan doonayno in public healthka wax laga qabto cusbitaalada qaarkoodna lagu dayactiro haddii loo baahdo waxaa la yidhi clinicskana lagu dhiso ayaa lagu daray wasaaradda tacliinta 6 milyan oo dhowdhow ayaa lagu daray oo iyadana loogu talagalay macallimiinta manhajka developmentkiisa imtixaanada qaadidooda ayaa in iskuulo elementary lagu dhiso waxa kale wax lagu daray jaamacadda ummadda yani qaybta tacliinta oo dhan markaad eegto si fiican baa la isku dul taagay inkastoo waxaasi aanay wax badan ba ahayn haddana markaad percentage-ka waddankeena adeegta lacagaha la gelinayo waxa weeyaan waa nisbo wanaagsan weeye waxa kale oo wax lagu daray miisaaniyadda distoorka iyo dhamaystirkiisa yaa isagana lacag lagu daray waxaad ogtihiin distoorka in la dhammaystiro in ay tahay ahmiyad aad iyo aad qaali inoogu ah si codaynta iyo xisbiyada iyo aan u gudagallo asagana lacag baa lagu daray xisbiyada iyo maamulada noocaas oo kale ee doorashooyinka iyagana lacag baa lagu daray ilaa 2 milyan ku dhow marka waxaad halkaa ka arkaysaa waxa weeye in dakhligii sare kacayo si loo allocate gareeyana ay tahay si laga talagelinayo hay'adaha horumarka ku shaqo leh waxaan filayaa markaa intaasan kusoo gabagabeynayaa waxaan diyaar u nahay inaan committee la shaqeyno ama guddiga la shaqeyno Mr Chairman aad iyo aad baad u salaamantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh okay arrinkani waxa weeye dood kama furno miisaaniyadda taas waa ogtihiin marka furna xeer hoosaadkay ku qoran tahay akhrinta koowaad marka uu wasiirku akhriyo guddigay aadaysaa markaas ka bacdi waa doodda ka furmaysaa xeer hoosaadka hadda meesha laguma qoro bismillaah gudoomiyaha mahadsan tahay dhammaan xildhibaanadii inta kale waa salaamaya wasaaraddan waan u mahad celinayaa anoo tixraacay gudoomiyaha xeer hoosaadka uu sheegayana waa noo fiicnaan lahayd xeer hoosaadkii
برلمانكان طوبانات إن لا سمعيو وزارة الرواي فعنان لهيت بقى كوات halku iyo dhig bay qoran taaf Soomaaliga yaqaan sida loo qorahayo inay maxaan ku raahdaa feeriyaan waa shartada meesha ay ku jirto maadaama wasaaradii maaliyadda ay tahay inay iska saxaan waxaan su'aasheedu waxay tahay codsi weeye waxaan rabi lahaa aniga iyo xildhibaano badan guuxun waa uu jiray wasiirku codkiisa waa uu gaabnaa warbixintii ficnayd oo uu bixiyay ayadoo qoraal haddaan heli karno si ay noogu noqoto inaan idinku raacno idin la ogolaano ilaa halkan number ayaa ku qoran warbixintaas way saacidi lahayd inaan si fiican u fahamno waana mahadsantahay xildhibaanka sharafta leh waxa weeye hadduu doonayo khudbadii wasiirka waa gaar hadduu doonayo se warbixinta meesha laga jeediyey ee uu wasiirku dul maray waa haysanaa waa kan yaa maxaad ka weydiinaysaa hadda waa lagu qaybiye mar labaad baan qodobka ku akhrinayaa xeeroosaadka haddaad doonayso waxa weeye weligeedii allaheed miisaaniyad waa soo samayn jirnay xildhibaanadii hore soo samayn jiray waana ka mid ahayd oo weliba actifka ka ahaa warbixinta ku saabsan miisaaniyadda iyo qabyo qoraalka miisaaniyadda ayuu wasiirka maaliyaddu ka hor akhrinayaa fadhiga golaha loogamana doodayo fadhigaas ma garat anigu qodobkaas wax ka duwan kuma hayo iga raalli ahow ajado kale oo sensitive aan rabnaa inaan gallo oo waxa weeye qoraallo oo wasiirka ka yimid iyo jawaab celin guddiga miisaaniyadda iyo maaliyadda ku saabsan waxaan doonayaa arrinkaas inaan si shafaafiye leh aan uga hadalno oo furan يعني oo aan waxa weeye wasaaradda iyo guddiga dhaxdooda aanan maaragtay ka keenayn walaal qodobkaas aan ugu hayaa wax ka duwanna inaad waa mahadsantahay qodobkaas kaliya aan u miisaaniyadda u hayaa anigu dood ma ka furi karayo xeer hoosaadka oo qoraya miisaaniyadda dood iyo su'aal waxa weeye meesha kama qora walaalo please iga raalli ahow walaal iga raalli ahow walaal cabdi cali waxaan codsanaynaa inaad xildhibaan fadhiisato adoo raalliya point of order-ka fadhigaa ku dhiibo anigu hadal ma ka furi karayo walaal iga raalli ahow